ما سنتهاي أنت أنا وزير إلياس أنا السنين دكتور محمد ربو كومنت إنه بحيو مركا إن شاء الله وقت نكون waxaan jeclaan lahaa mid horta mid inaan ma garanaysaa kala ergareeyo si aan hadhowto hadalku waa margiyo kale marba dhan loola cararin waan sheegay waxaan ku yidhi waxaan idin yidhi dawlad baa jirta tii kalena lama gaadhin jidkii siraad baanu saarannaa markaa taasi waxa weeye anigu policy dawlad soo socota iyo mid jirta kama hadlayo qof independent aan hay markaan maanta shirkan oo kale joogo waayo dee dawladdii cusbaydna lama dhisin tii kalena way jirtaa oo dee aanan anigu isku policy ahayn taasi waa taa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya sorry wasiir ixtiraam weyn baan ku hayaa waxaan ixtiraamayaa kursiga aad ku fadhido waxaan ixtiraamayaa ummadda Soomaaliyeed aad mansabka u hayso laakiin runtu waxay tahay markaynu laba ninoo Soomaaliyeed u wada hadallo ummad Soomaaliyeed oo intellectually ay in dhageysanayso aniga adiga anigu wax badan baan ka weynahay waan ka waayay aragsanahay wasaaradda waan kaaga horeeyay diplomacy-ga waan kaaga aqoon badanahay laakiin runtu waxay tahay waxaan jeclaan lahaa hadduu maanta madaxweynaha Soomaaliya uu imaqlayo inaanad negotiationska Somaliland iyo Soomaaliya aanad dhexgelin waayo runtu waxa weeye ummadda muslimka ah qofka islaaxa sameynaya waa qofka ummadda isu soo dhaweeyay Soomaad garan waxaan jeclaan lahaa haddii uu maanta madaxweynaha Soomaaliya taladayda qaadan lahaa inuu qof kale kugu soo bedelo inaanad negotiationska Somaliland iyo Soomaaliya dhexgelin aad iyo aadna ugu mahadnaqay horta sideedaba personal aniga marnaba saaxiibkay si personal uga hadlin malaha cuqdad hore ayaa ku guntanayd oo uu rabaa inuu sheego dad laakiin anigu personal marna kama hadlin waxaan ka hadlay qadiyada guud oo iyo doodani ku saabsan tahay wada hadallo la hogaaminayo iyo kuwa la sii hogaaminayo sanadka hor baan halkaan fadhinaana madaxweynaha hogaaminaya laakiin ninka uu hooseeyaan uu ahaa heshiisna waa wada gaar Faysal Ali Waraaba wuxuu yiri anigu waa ka cibaado badan Muuse Bixi mar la weydiiyay hadda ninka saaxiibkay waa cilmi badan cilmi waa la soo gaaray waa laga yaabaa da inaad iga weynta waana iga weynta laakiin cilmiga dadku ay soo gaareen 25 jir baa PhD wata hadda waa la soo gaaraa waxaan marka runtii anigu mar walba aaminsanahay walaalkayo أنا كمان هالين سي personal وزير كان هدرتان ويبرشر قرينايا لكن أنا أفكارتي ده أنا مسنا هيو Soomaaliya haddii la kala go'ayo si sharci loo kala go'o laakiin sharci baa lagu wada joogaa hadda taas tanaasul iyo jixinjix waligay kama muujinayo kuma xirna wada hadallada hadda la galayo taasi kuma xirna waa afkaar shakhsi ah ama waa afkaar mas'uuliyadda saarayso marka runtii waan inaad wixii personal u bedeshay waa ka xumay laakiin fariintaas aniga waxaan ogaa inaadan halkaan u diray inay meel kale inaad u diraysid waad gudatay fariintaadii